Alan Shearer oo shaaciyay hal saxiix oo uu Amorim ku qaldanaa inuu United keeno xil ciyaareedkan. Halyigii hore England iyo goolaliyaha ugu sareeya taariikhda Premier League Alan Shearer ayaa shaki geliyay saxiixii ugu weynaa Manchester United ay sameysay suuqii xagaagan Benjamin Sesko. Sesko ayaa ku bilowday qaab ciyaareed caajis ah, isaga oo dhaliyay kaliya 2 gool 12 kulan oo u saftiray Devils. Ciyaaryahankan reer Slovenia ayaa lagala soo wareegay RB Leipzig si uu Manchester United uga saaro dhibaatada gool la'aanta. waxaana loo arkay inuu noqon karo bedelka Rasmus Hojlund. Tababaraha United Ruben Amorim ayaa u jeestay Sesko kadib markii bartilmaameedkiisii koowaad Victor Gyökeres uu ku biiray Arsenal. Shearer wuxuu aaminsan yahay in Manchester United ay lacag waali ah ka bixisay Sesko, wuxuuna qirtay inuusan wax weyn ka filaynin 22 jirkan. Shearer ayaa u sheegay Betfair, ciyaaryahan ay ku qaldaneed United saxiixiisa waa Benjamin Sesko. waxay ku bixiyeen ku dhawaad 70 milyan, taasi waa lacag badan. Waan ogahay suuqu waa sidaas, laakiin waxay ahayd mid aad u badan. bilowgiisii hore wuu adkaa, laakiin run ahaantii wax weyn kama filayo hadda. Waxaan u malaynayaa inuu yahay ciyaaryahan fiican, laakiin ma hubo inuu ka badan yahay intaas. Wuxuu dhaliyay 2 gool oo kaliya marka loo barbardhigo heerkii laga filayay. Bilow adag ayuu qaatay gaar ahaan marka loo eego lacagta ay United ku bixisay suuqiisa. Fiid wanaagsan saaxiibayaal, meel walba aad naga daawanaysaan iyo waqti walba idin tahay. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan uga hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaarto ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtaan ugu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.